إيمانك شيء قرا لقو قبو باين الرحمن كقول كيف ما صور مقايبه قول كيف فردوسية جنو قورسن وليجيه قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآنك يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسيرك واللقو قيافر قلوبتينا قياما حقي ساد أوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وسورة البقرة آية بقولي أفر يلا قال الله تعالى: إلهي بأوحد وإذ وقت حسن بمحمد ابتلى إبراهيم ربه. ابتلى وحى امتحاني إبراهيم، نبي إبراهيم ربه إلهيسي أي امتحان بريه بكلمات وحياوة أمري أيوكو امتحاني فأتمهن ولما يستري وحي لفري ودن وذفولي. قال مركا إلهي وحي لسقى أبال مرينيا: إني جاعلك للناس ضدك وحن كاغدغيا إماما هقاميه. قال مركا النبي إبراهيم وحويلي: ومن ذريتي إلهي أوبت كيغنا قيب كم إذا مدح كدك. قال إلهي وحول لا ينال عهدي بلن كيغا سيغاري ما يهقامين تاوناكسن الظالمين ضدك الظلم فلا ياشا أقاري ماي. وإذ وقت حسن بمحمد وجعلنا البيت كعبدا آنو كدقنا مثابة ما لغو صور نغنقضو حجي عمر الله لغو صور نغنقضو للناس ضدك آنو كدقنا وأمنا ميلنا بتقليانا وان كدقا يبو لهاي. واتخذوا وحا كدقة من مقام إبراهيم، نبي إبراهيم هل كاو استاغي مصلى ميل لغوتو كذا كدقت صلاة سنها. وعهدنا إلى إبراهيم، نبي إبراهيم وحان أمر نبي لهيد وإسماعيل إيو إنن كيسي إسماعيل با أن ظهر بان فر نبي لهيد وحان فري نظيفية بيتية كوريغية وكعبلة للطائفين الددك وريغية عبادهان وريغية ونظيفية والعاكفين إيكو إسكفردية والركع السجود يكو الركوع سن السجود سن معنا ددك التكنية انت ابا نظيفيا. marka la eego munaasabada ka dhaxaysa aayadaha hore iyo aayadahan aynu akhriyayno culimadu waxay leeyihiin waxa weeye fikirkii ama wixii ay faafinayeen yahuudiyo ilaahay meesha ka saaray uu deedifaynayo iyo mushrikiintii ama gaaladii carbeedba labada qoloba waxay isku xoqi jireen oo ay ku abtirsan jireen nabi Ibraahim oo ay la ummad ahayn. kuwana waxay leeyeen annaga ka farcano diintiisii baanu haysanaayo kacbadii uu dhisay nabi Ibraahim ayaanu joognaa oo xokayn kana waa Quraysh diintiisina waa baanu haysanaa. marka Muhammad iyo kooxda la socota cidla iska cararayaane nabi Ibraahim annaga ayaa ku abtirsanay nabi diintiisina haysanaa. nimanka kale iyaguna yahuud iyo nasaaraduna saasoo kale oran jireen. marka rabbi waxa uu halkan ku cadcadeeyay sifaadkii iyo tilmaamihii qiimaha iyo quruxda badnaa ee uu lahaa nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam khaliilur rahmaan. marka awsaaftiisa iyo tilmaamihiisa iyo mawaaqiftiisa iyo mu'taqadkiisa waxa uu aaminsanaa oo dhan halkan ilaahay uu soo bandhigo iyo dhaqankiisa qiimaha badnaa waxa cadaanaya abtirsiimada ay ku abtirsanayaan inay tahay mid been iyo baadil ah. marka qisada nabi Ibraahim iyo sida loo soo dhaxdhigay qisadii reer banu Israa'iil oo xagga damana aayada ka hadhan yihiin waa sidaas weeye. nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam waxa ilaahay uu doortay inuu noqdo khaliil saaxiib kaliya lama oran karo laaxiin al-khulla waa saaxiibtinimo aad u xeel dheer oo markaa meel gaarsiisan. ilaahayna cid uu khaliil ka dhigtay waxa jira nabi Ibraahim oo quraanka uu ku cadeeyay iyo nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo iyadana sunnaha uu noogu cadeeyay. oo rasuulku waxa uu yiri anigu ilaahay baa khaliil ii ah adoomihiina kale cid khaliil ii ah ma jirto. haddaan khaliil samaysan lahaana Abu Bakar baan ka dhigan lahaa buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam. xadiidkii saxiixa marka asxaab bay wahaayeen ummadii waqtiga la joogtay laakiin khaliil wuxuuna uu ahaa ilaahay buu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam.
idan markaa khulladu waa saaxiibtinimo xeel dheer madaarij saalikiin sida uu ku sheegay ibn qayyim rahimahullah waxa uu leeyahay saaxiibtinimada waxa uu ku helay nabiyullaahi ibraahim sifaad baran oo quraanka kariimka ah ilaahay uu noogu cadeeyay oo mudan inaynu inaguna ku dadaalno si aynu wanaagga ilaahay awliyadiisa iyo anbiyadiisa sifaadka in badan oo kamida ama ilaa 7 suuratu nahl aakhirkeeda ilaahay uu ku sifeeyay nabi ibraahim inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan lillahi xaniifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وحلاي كسفين وها نبي قاسي سوى قف كليا بهذا أمضها أمض بها سفوين كوناكسنا أمض كلا تكسن استجاب حنبار سنة بدقانة إلهي سوه كان سبها حنيف بها يو wixii xun oo dhan ka soo leexday ilaahay sana ku jahaysan oo wixii khayr oo dhan u soo leexday shaakiran li an'umi nicmooyinku ku mahadnaqi jiray nicmooyinka ilaahay uu siiyay mid diineed iyo mid dadka iyo mid dunyada intaba ilaahay buu ugu mahadnaqay markaas ilaahayna ku abaal mariyay waxyaabaha uu sheegay suuratu an-najm ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu wixii la faray oo dhan fuliyay wa ibraahiim alladhi wafa وإبراهيم كي أوفيي إبراهيم نحس بالي ونبي إبراهيم كي أوفيي بحيل فريودا سورة هيد إلهي وحول إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدح سفوي سراعي ننتو القاد بدن بوها وعبسي بدن إلهي نأتوبت كينيا سورة الذاريات إلهي وحكو أمان النبي إبراهيم وسفوين كي سكمدها كرمه وسخاؤه إنه هاد ديخسي داق بدن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين آيات كأخريز سلام كدب وحور لقاق إسقى الله يا أبا هنتي سوينا بدنا نفك وهي بينو أن وسوق ورعاء وصاب بسلايه إذا مصبري سفوين كوناكسن وصاحبتني ماذا نكون قالوا وحكم ذا صبر كيسو وينا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل رجع صبر كودو آت كوبضنا لأن النبي محمد حق الصبر كقضى أيو يسوق هرمود كاها رسول كان النبي إبراهيم عليه السلام سفوين كاو خلدي يا صاحبتين ماذا كم متستوى حكم لها البراءة من الشرك والمشركين قال أولاً بكج عن تاكت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلى آخر الآيات آيات كسورة الممتحنة كقضى يذبوا إلى هاي النبي إبراهيم يا مؤمنين تلا سعودي سيدا يقبر النقضي أنا يقدر كان قال كإلهي كدر كي وحا كم ذها وحيابها نبي إبراهيم وصاحبته نبذا كم تستق قيامه بجميع ما أمره الله على أتم وجه سيدا يقول قروح ذي قيمها بالضيط أيودا ما يستروحي إلهي وفريودا وإنك هل كان كأركينا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ولما يستروحي لفريودا وحوسي وينا وحيابها ودرجة كجاري وأنا توجو عرس بابا هيدا أولادي سي متكمل وشعلي هذا برباري يا إلهي والتجابك قاضي وحيدة في نوعها الضمها إلهي سيابا بدن بو امتحان نوع قارة كساوي حلين تدرتا قادته المهاجا شيف يودك تديق أضر جورع بالي وأهرن هذه عجيبة isagii wuu isdhiibay inankiisina wuu isdhiibay markii warkii uu dhameeyay ee qacdi una ay hadhay ayaa ilaahay uu ka joojiyay subhanahu wa ta'ala ilaahayna wuxuu ka marxaati ku cadeeyay inuu imtixaan adag ahaa in hada la huwa al-balaa al-mubin suratu safat baad qisada ka akhriyi karaysa arintaasi arin culus bahayd buu ilaahay baa uga marxaati kacay marka arimahaas oo dhan ilaahay uu ku amaanay inaguna waxaanu kari karayno kale waa iska itaaliyarnahay inaynu anbiyada iyo saalixiinta iyo awliyada ilaahay bal isku dayna inaynu kaga dayna aad bay muhiim u tahay marka kuwaas way eedeeno way seegeene idinku hadii aad tiin dadka aan shahaadanay islaamka ku dayda baa la leeyahay rasuulka nabi Ibraahim nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam saasu ilaahay faray fabihudahum iqtadi
hanuunka ambiyadaasoo kale ku dayo nebi ibraahim baa ilaahay kelimaad buu ku imtixaanay kelimaadkaasi waa awaamir waxyaaba la faro kuwa aynu sheegaynaa ka mid ah isagoo nin weyn oo 80 jir baa waxaa la yidhi ilaahay wuxuu soo rogay sharci ah in la isgudo xadiidka bukhaari siduu tilmaamaya gudniinka waa idin garan soo maaha buuriyada in la jaro ikhtatana ibraahimu bilqaduum nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam siduu amarka ilaahay ugu degdegayey gudintii geedka lagu garaacayo gow ku siiyey odayguba wuu sigtay nebigaa ilaahay dirqu ku baxsada sakiin iyo mindi toona ma raadinine amarkii ilaahay isagoo u degdegayu dhag ku siiyey taasina markaa waxay ka mid tahay in waxyaabaha uu dhammaystiray khisaal alfidra waxyaabaha wanaagsana diinteennu ay noo jidaysaybu guddiinkaasina ka mid yihi arrimahaasoo dhan markuu ka soo baxay ilaahay wuxuu u doortay in uu noqdo hogaamiyihii ummaddan inii jaaciluka linnaasi imaama ilaahay wuxuu ictiraafsan yahi ogol yahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo ka ilaahay ogola ka edebsanaya kii kale ilaahay ma ictiraafsana ummado shisheeya ictiraafsan soo maad baqli jirin wax ictiraaf la yidhaahdo oo dadku ay daba cararaan ka ilaahay uu ogol yuu ictiraafsan yahay waxa weeye marka uu addoonkaasi ilaahay isu dhiibuu ka amar qaato ilaahayna wuxuu u ogol yahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo laakiin hadduu isagu hallowsan yahay ilaahayna barbar maro lama ictiraafsanaa madaxna ummadda ma noqon karo saa daraaddeed dadka muslimiinta qiyaadadooda shuruuday leeyihiin shuruudahaasaa dib u akhriyi doontaa aayadaha laga faa'idaystay marka aayaddani ka mid tahay nebiga nebi naxariis badan buu ahaayoo dadku u naxariisanayay u dadaalayayna waxaa ka mid ah ubadka isaga ka soo jeeda ee ka farcan markuu arkay inuu ilaahay xil weyn iyo wanaag u ballan qaaday kolkiiba wuxuu soo dhigay ubadkiisana in lagu daro wa min duriyati ilaahay uu madax ka dhig buuri ubadkaygana mintu waa tabciidiyo dee kolle uu wada ogyahay inaanay wada hagaagayne ilaahay kii uu qalmana ilaahay uu ka dhig wey ubadkaygana ka dhig madaxtinimada ah qaala laa yanaalu cahdi aalimiin saynu hore usoo sheegnay ilaahay wuxuu ihi hogaaminta ummadda islaamka ma qabanayo mid daalima ama aan hagaagsanayn marka waxaad ogaataa ummadda ubadkaaga oo dhan ha la wada doonina intii miyir qabta ee caadiliinahunbaa hoggaan noqon kara laakiin daalimiintu ma noqon doonaan iyo dulmi falayaashu ummadda hoggaaminuma noqonayaan daalimka u weynina waxa weeye ka ilaahay dulmiyey oo ilaahay see loo dulmiya dee ilaahay hal xaq buu leeyahay xaqa keligu leeyahay waa cibaadatuhu waxda keligii in la caabudo marka qofku hadduu diiday inuu ilaahay caabudo waa akbar daalim dadka kalena hadh u jiidi maayo saasaa ilaahay ogeysiiyey waxyaabuu ummadda ku hogaaminaya waxaa ka mid ah inuu u diyaariyey nebi ibraahim isagoo amarka ilaahay qaadanaya kacbada dhismaheeda taana xagga dambe insha Allah ku arki oo xagga macna ahaan dee dhismihii kacbada aayaadka ka waramaya horeeya aayaadkana waxay tilmaameen faa'iidada beedku uu leeyahay iyo qiimihiisa beedkii waxaan ka dhigay baa ilaahay uu kacbada masaabatan linnaas meel dadku uu ku soo noqnoqdo xajkii iyo cumrada lagu soo noqnoqdaa ducadii nebi ibraahim baana ilaahay u aqbalay fajcal af'idatan min annaasi tahwi ilayh ilaahu dadka quluubtooda waxaad ka dhigtaa mid u soo cishqiyaysa oo jecel kacbada iyo dadkeeda markaa qofku wuu ka caajisaa meelaha kale hadduu hal mar maro ama ku dalxiisee baytullaahi alxaraamka qofku hadduu tago kama caajiso waxaa kaloo ilaahay uu ka dhigay meel degan saa daraaddeed baa uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda farayey deganaanshaha in loo ilaaliyo qofka deganaanshaha ka luminayaana inuu daalim yahay buu caddaynayey markuu xoreeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadii 8aad baytullaahi alxaraamka iyo maka wuxuu ihi xurmadii waktigii intaa inaan dagaalka ku qaadin ka hor xurmadii ay lahayd maanta u soo noqotay saacadda aan xoreynayuun buu ilaahay xalaaleeyey cid kaloo ka dagaalami kartaana ma jirto cid kale oo halkan ka dagaalami kartaa ma jirto cid ku xalaashan karta nebi maxamed baa ka dagaalamayna ma jirto halkaasuu ku joojiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu cumar isaga oo mino jooga waktigii xajaaj binu yuusuf uu markaa bicadda xajka hogaaminaya cabdulmalik ibnu marwaan waktigiisi ayaa nin khawaarijtii ka mid ah ayaa waran la eegto cagtu ka taagay dhiiggii baa isqabsaday cabdillaahi bnu cumar xajaaj binu yuusuf oo meesha colka waday oo isagana lahaa bal itustus camalka xajka ila waa asxaabigii cilmiga badnaaye ayaa wuxuu yihi war cabdillaahi iska warran uu soo booqday
dee maxaan iska warramayaa buuhi balaayadoo dhan adaa u horseede nebi maxamed dadku halkan xaramkan yay la soo gelin buuhi hub iyo dhibaato ninka hubkan iyo dhibaatan iyo bodyguardkan iyo balaayadan iswadataa ninka keenay waa adiga khawaarijtaasina adigay ku soo eeganayaan marka mushkilad aad adigu keentay maxaad iga waraysan buuhi wala dee kii kacbada dumiyey markaa saas xaaladdeeda waa macruuf واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عمر بن الخطاب الله كره للنقضة وحاب ملهم إلهي وحاب بدن وكو إلهاميي وحاب واحد ترى الله إلى موافقات عمر إلهي كوافق لما أردنا إلهي با عمر كوافق لكن وحويان عمر با إلهي كوافق وحو نبي قوش يقول ملاها كان نبي إبراهيم استاجا وحفي عن إننا كنت كنه آياتنا بسودكتي سيدي با مركز صلاة دي سنة هيدا الضواف كدر بيسي ayaa loogu tukanayaa maqaamu ibraahim agtiisa labada ragcadood sunnaha ka dambeeya wattakhiduu amarkaasi waa jira qirada kale sabciyada waxay tilmaamaysaa wattakhaduu min maqaami ibraahiima musallan anaa nabigii asxaabtii waxay ka dhigteen meeshuu nebi ibraahim markuu kacbada dhisayay uu istaagay meel ay ku tukadaan labadaba waa sax weeye inuu ku ammaanay asxaabtu inay hawshaa fuliyeen maqaamku markuu nebi ibraahim dhisayay waa halkuu istaagay cagaha u saaray hadda waxaynu aragnaa meel yaroo quraarado yuuban inuu raadkii dhex yaallo saasay munfasil uga ahayd oo gidaarka kacbada ay uga durugsanayd mise cid baa ka durkisay waxay u badan yihiin culamada taariikhdu inuu cumar ibn khadaab markuu hagaajinayay dawaafka inuu ka durkiyey saasay u badan yihiin waxyaabuhu ilaahay faray ee uu ku imtixaanay nabigan waxa kamid ahaa uu fuliyay wacahidna ila ibraahiima wa ismaaciila an tahira baytiya litaa'ifiina walcaakifiina warukaci sujuud waxyaabuhu ilaahay faray bay kamid ahayd nadiifi baa leeyahy nebi ibraahim iyo inankaaga ismaaciil labadiinu labada rasuul ba ilaahay wuxuu faray beydkan dhismihiisana waa la faray saynu arki doono nadiifintiisana waa la faray marka nadiifintu waa mid maxsuusa iyo mid macnawiya labadaba nadiifin la arkayo oo maxsuusa oo aan la ogolayn wixii quruna iyo wixii wasakha iyo wixii dadka ku cibaadaysanaya dhibaya lama ogola waa mid la taabanayo taas mid macnawi ah oo si weynina way jirtaayo wixii had iyo jeer gaaladu ay keenaan iyo shirkiyaadkooda iyo diin la'aantana in laga nadiifiyo siduu nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalay arrintaas oo waqtigii uu xoreeyay rasuulku wixii uu horeeyay gacanta saaruu burburiyay baabiiyay waxaan 360 sano oo 360 ka maalmood lagu kala hagaajiyay oo kacbada tuulnaa ayuu ka xaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas aanay tahay oo mar walba guriga ilaahay baa ku awleysan oo ku habboon in la nadiifiyo wadahir baytiya idaafada waa tashriif gurigani kol haduu yahay gurigii ilaahay adoo waxaad jeceshay gurigaaga inaad nadiifiso ama guriga boqorka la nadiifiyo ama guriga heblaayo uu nadiif ahaado maxaad u maraysaa bayt allah bayt wuxuu istaahilaa in la nadiifiyo la udgooneeyo la hagaajiyo masaajidada kalena waa la mid oo iyadana waynu ku amranahay caaisha waxay leedahay radiyallahu anha umirna an nabniya almasaajida fi duur wa an nunadhifa wa nutayyib waxana la faray macna nabigu baa faray calayhi salaatu wasalaam inaanu deegaamadii xaafadaha masaajidada ka dhisno oo aanu nadiifino oo aanu udgoonayno cibaadooyinkaynu qabanayno ay taasina ka mid tahay si qofku isagoo raaxaysanaya cibaadadii qalbigiisa ugu soo jeedsado wa id waqti xusna bi maxamed oo qaala ibraahim baa wuxuu yiri rabbi ij'al hada ilaahay oo halkan waxaad ka dhigtaa baladan aaminan maka ilaahay oo dal nabadgeliyada ka dhig warzuq ahlahu min athamarat dadka deganna arsaaqad si man aamana minhum billah ka iyaga kamida ilaahay rumeeyay arsaaqad si wal yawmil aakhir iyo maalinka qiyaamaha rumeeyay gaalkii uu ducaynin ba arsaaqada uu dalbinba qaala ilaahay wuxuu waman kafaraka gaaloobayna fawmati'uhu isagana waan u raaxayn doonaa qaliilan yar ودينتنا الدنيا ده ثم أضره وحنود بجلين دونان كقصب إلى عذاب النار نار عذاب كده وبئس المصير ما الله نقضاء الله بتنا هالقصة وحب العظيم مركز يسقى واجبات كيسي جدنا النبي إبراهيم عليه السلام إنه الدعية مرر بدن بؤاد الدعية صورة إبراهيم ده آخر كده نوات كآخره كريس ربي أرجع ربي أو آدي يا صار نقنية نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ومدينة تجي
waxa uu u duceeyey madiine oo uu lahaa ilaahay waxaan kuu barayaa reer madiine inaad siiso intuu nebi ibraahim waxaan u ducaynayaa intuu nebi ibraahim maka u duceeyey ehelkeeda in ka badan ayaan u ducaynayaa xaram baanaan ka dhigay buu lahaa madiine rasuulku sala allahu calayhi wasalam maa bayna cayrin wa thawr labadaa meelood inta ka dhaxaysa siduu nebi ibraahimba xaram uga dhigay ilaahay u faray waxay tilmaamaysaa markaa tani qofka muslimkaa ee hami weyn xambaarsani wuxuu aad iyo aada ugu dadaalayaa dalka iyo dadka iyo ehelka iyo ubadka iyo ummadduba inay nabad galaan ducadu u badinayaa hanuunku u badinayaa dadaalku u badinayaa naxariistiisaa badan qofka had iyo jeer iimaan laa-uha sharka badanina wax ka galayba ma jiraba munaafiqiintu ilaahay ka warrama wuxuu uhi qad ahamatum anfusuhum naftoodunbay waa keligihaan leh naftooday u hamiyaan ee u ordaan laakiin hami ummadeed ma xambaarsana ducadiisaad arkaysaa iyo dadaalkiisa ilaahay ou dalkan ilaahay mid aamina ka dhigoo nabadgelyo badan nabadgelyaduna qiimaheeday leedahayoo inkastoo nabadgelyadu markaa la raacayo diinta islaamka ee cadaaladi jirta ay suganto haddii diinta la weydaarto dee halkaasaabay ka bilaabantay dhibaatadu nabadgelyada u qiimaha badan waa inay addoomuhu ilaahay u soo noqdaan arsaaqad ilaahay si midho fara badan ehelka halkan degan maka ku arsaaq buu lahay ilaahayna uu aqbalay yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay milaha caalamka oo dhan baa la keenayaa iyadoo waxba aanay ka bixin taana ilaahay uu aqbalay isagoo ka feejigan halkii hore ee ilaahay uhi laa yanaalu cahdi aalimiin ee loo sheegay in aan ilaahay hogaaminta wanaagsan u dhiibaynin kuwa daalimiinta isagoo tii ka feejigan ducadii wuxuu ka reebay dadka aan ashahaadanaynin alla yaqaanka ahayn arsaaqadaa iyo amnigaa waxaan ku weydiiyey man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir ayaan ku weydiiyey ilaahay wuxuu u sheegay markaa bahashan adduunya rabbi agtiisa inaanay qiimo ka lahaynoo gaal iyo islaamba loogu deeqayo qaala waman kafara faumaticuhu qaliila uma adaruhu ilaa cadaabi innaar ka gaaloobay laftiisana waan siinaya arsaaqada adduunyada dee iyadaaba iska qaliilahoo iska yarba iyadaabaa qiimo weynba lahaynba hadday qiimo leedahayna gaalkaasuu ilaahay ka calafgoyn lahaa sidaasaa markaa ducadii nebi ibraahim loo arkay iyada oo ilaahay uu aqbalay subxaana wa tacaala naxariistiisii badnayd bay ka mid ahayd dadaalkii uu goobaha muqadasaadka u soo dadaalay dhismihooda iyo hagaajintooda iyo dadka siduu ugu hanuunin lahaa arrimahaas oo dhan baa ka mid ahaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان